موقعها لايك شار شرقري لو لا أصحابتها أيدي بالمرصوصها degmadaba aad tihiin inaad qorraxda u taagan tihiin inaad madaxweynaha aad soo dhaweysaan waa farxad weyn madaxweyne waxa weeye dalkaagu ku soo dhaweeyay dalkaagii waa ka soo baxday موقعها لايك شار شرقري لو لا أصحابتها أيدي بالمرصوصها ريا أوضل تلو يدردان وحنا هيان الدين شيء يقدر هدول هاي aad baan idinku mahadnaqay madaxweynihii hore Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa maanta lagu soo dhaweeyay degmada Dira deegaanka Garoyacawl iyo deegaano kale isla markaana soo dhaweyntiisani saaka waxa xilli horeba goobaha si xaadiray wasiirada Soomaaliland badankood agaasimayaal isduwayaal maamulka gobolka wadalka degmada Boorama wax garad culimadiin siyaasiyiin aqoonyahan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin waxa uu shacabkiisa kula hadlay isla markaana mid u gacan qaaday dhamaanba mas'uuliyiinta kala duwan ee ku sugnaa goobta deegaanka Garoyacawl ee duleedka magaalada Boorama waxaana soo dhaweeyay mas'uuliyiinta kala duwan ee ku sugnaa goobta oo ay ka mid ahaayeen wasiiro maamulka gobolka wadalka degmada Boorama iyo mas'uuliyiin kale nooc kasta ay leedahay mudane madaxweyne waxay ku soo dhaweeyeen degmadii Boorama iyagoo ilaa saaka caleemo qoyan la taagnaa si ay ku soo dhaweeyaan taasina waxay mudan tahay احترامك iyo tixgelinta iyo sharafta ay ku hayaan mar labaad iyo mar saddexaad mudan madaxweyne waxa kugu soo dhaweynaya degmadii Boorama waad mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah ugu horeyn ilaahay baa mahad leh mahadda labaadna waxaan siinayaa dadweynaha qiimaha iyo sharafta iyo milgaha huwan ee soo dhaweynta u diyaar garoobay ilaa shalay madaxweynahoogii hore aabihii dimuqraadiyadda Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin farxad weyn bay noo tahay haddaan reer Awdal inaan maanta gacmo furan ku soo dhaweyno aabihii dimuqraadiyadda Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin madaxweyne waxa halkan kugu diyaara dadkaagii Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo ilaa shalay u heelanaa soo dhaweyntaada ku soo dhawow gacmo furan qalbi furan iyo waji furan dhammaantiin waxaan ilaahay soo dhaweynta aad soo dhaweyseen madaxweynaha mahad baa iniigu soo celinaya gudoomiye ahaan ilaahay baana mahad leh xilli wanaagsan xilli qiimo leh ayuu inoo yimiday hadle ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan runtii ugu mahadnaqaynaa inaan maanta garbihiisa joogno macallinkayagii waliba waan dhihi karaa macallinkaygii weey madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin oo booqasho rasmi ah ku yimiday markii hore dalka guud ahaan joogay maanta gobolka soo booqday waxaan rajaynaynaa inta uu joogana inuu wacdi iyo waanayo tusaalayn iyo intuu joogana wixii khibrada aan ka faa'iideysano waan soo dhaweynaynaa dhammaantiinba maalmaha badan aad ka shaqaynayseen in maanta madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin oo ahaa madaxweynihii saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee qof iyo cod shacab lagu doorto isla mar ahaantaasina ahaa madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin oo sida guud ahaan baad ka warqabtiin muddo 2 bilood ku dhow dalka booqasho ku yimiday intii uu joogay dalka ilaa soo dhaweyntiisina aad ogtihiin maamuuskii madaxweyne lahaa in loo dhammaystiray oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu u saaray guddi soo galbisa ilaa maalintii airportka ka soo degay ilaa maantana halkan aanu ku joogno soo dhaweyntiisa iyo maamuuskiisa iyo in loo dhammaystiro hab borotokoolkii madaxweyne lahaa waa wax ilaahay loogu mahadnaqo xubnaha wafdigeenu halka ku joogno ee murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo aniga oo si rasmi ah ee waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyaddu noogu xil saaray ee waxa weeye soo dhaweyntiisa iyo maamuuskiisa inaanu maanta halkan ku soo dhaweyno oo gudoomiyihii gobolka Awdal oo maanta halkan ku soo dhaweeyay iyo duqii degmada Boorama sharaf ka weyn ma jirto in maanta madaxweynuhu isagoo gees ilaa gees jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan xurmo iyo sharaf u hayso intii uu joogayna aad ogtihiin hawlihii qaranka uu ka qabtay ee la mahadiyay runtii sharaf weyn bay noo tahay waa soo dhaweyn wixii kale waxa uu noqon doonaa in fadhi la isku yiraahdo madaxweynahana aynu ka dhageysano talooyinkiisa
dee awalba lagu yaqaanay qarannimo iyo waxa weeye wax ka yara aanu jirin marka dhammaantiin sidii gudoomiyaha gobolku sheegay waa mahadnaq inaanu annaguna idinkaynii mahadnaqno maadaama aad shacbigii gobolka iyo degmadaba aad tihiin inaad qorraxda u taagan tihiin inaad madaxweynaha aad soo dhaweysaan waa farxad weyn madaxweyne waxa weeye dalkaagu ku soo dhaweeyey dalkaagiiba saa ka soo baxday dalkaagiina waa timiday runaantii waxay kaga gardisay waa constituency-gaagii laakiinse waxa weeyaan intii waddankaad joogtaba si lagu soo dhaweynayey waxa sharaf iyo habra wanaag ma og tahay wanaagga iyo jacaylka somalilan ay ku hayso iyo annaga nafaanteeda farxadda geliyey waxa weeyaan run ahaantii madaxweyne daahir wuxuu exception ku leeyahay oo ku yahay waa ninkii hirgeliyey somalilan tubta ma og tahay dimuqraadiyadda cagta u saaray madaxweynayaasha qaar baa ku ah mansabka uun somalilan ku jecel isagu mansab kuma jecla somalilan qalbigu ka jecel yahay una dhisay laakiin somalilan nafaanteeduna dee way u mahad celisayoo raggii xitaa waayadii hore ku kacsanaa waa ninku maan mooday markaa dadkaagii waa kuu diyaar way ku soo dhaweeyeen aadna way u mahadsan yihiin waxaan aadna ugu mahadnaqayaa reer dilo oo yar iyo weyn u kala hari saaka هذا وحوالي تاير بارك موتاي أبيك نبيها أبي سقير عادي وسولوي يجن بارك ما هندقيها إذا كان فانتي لين بدل عادي جوكتينه بدل ما سنتي لكن سلا وواجبه حق انت كبر بالولاية ويا هرينا وبر بين نوتا هذه بدل ما سنتي كور رئيسا مالي ذكم هندقيها أفضل وديجان كيجيا sida qiimaha leed iga soo dhaweyseen markana markii koowaad maahine marar hore oo soo noqdayna waa la igu soo dhaweeyay markii koowaad maahin ibankana hadduu ilaahay yiraahdo warka dib baanu ka wada sheekaysan doonaa haddii aan awdal limidna waxaanu imanayaa inaan ree awdal talo waxaan hayo xagga Hargeysa waxa talo hayo waanu sheegay intii taladu ay khusaysay ree awdalla talo iyo dardaan waxaan hayaan idin sheegi doonaa haddii ilaahay ilaasho aad baan idinku mahadnaqay dhalinyarada Soomaaliland oo dhan waxaan kugu soo dhaweynayaa madaxweyne shahaada sharaf aad u qalanto oo ay ku qoran tahay macnaheedu ay tahay madaxweynihii abid soo maray Soomaaliland ee ugu wanaagsanaa madaxweyne ku soo dhaw iga guddoon shahaadada suxuf cishqi deegaanka Gooryacawl ee duleedka magaalada Boorama muuqaalka like share شركة لا ولا أصحاب ترى أبي أبغى المرشد هاي